gudoomiyaha gobolka Xaysimo Mudane Cabdirashiid Maxamed Axmed Xiir oo heliya xogayaha degmada Taleex ee gobolkaasi Xaysimo ayaa intii uu ku sugnaa gobolkaasi waxa kulamo ballaaran la yeeshay odayaashii waxgaradkaasi gobolkaasi isagoo kala hadlay si kor loogu qaadi lahaa nabadgelyada deegaankaasi waxa kale oo gudoomiyaha gobolka Xaysimo Mudane Maxamed Axmed Xiir oo kulamo gaar la yeeshay dhalinyarta haweenka waxgaradka aqoonyahanka oo dhamaantoodba kala hadlay si kor loogu qaadi lahaa nabadgelyada deegaankaasi ee gobolkaasi Xaysimo isagoo baryahanba ku sugnaa gobolkaasi Xaysimo xaruntiisa Taleex ayaa wuxuu mar la hadlayay warbaahinta qaranka ka waramay waxyaalaha uu qabsoomay intii uu ku sugnaa gobolkaasi Xaysimo waxaana hadaladiisa kamid ah sida tan waa xarunta gobolka waxaan deegaanka hadii aanu nimi aan la kulanay odayaal badan oo kala duwan oo beelaha deegaanka adu dhowdhow soo maray arooli waan soo maray degmo oo iyadana la soo kulanay odayaasha joogay iyo dadka joogay Taleex oo ah xarunta gobolka ahna meesha uu nabadgelyada hadda deegaanka ayaan soo gaadhnay markaan soo gaadhnayna waxaan la kulanay arrin nabadgelyo xumo oo ka jirtay markii hore aan dareensanayn arrinta iyada waxaan la kulanay beelihii meeshii isku hayay odayaashoodii qaashi iyo waxgaradkiiba waxaanu isu keenay qaashi oo inuu aan isu iman شيف عاقلكي إسماعيل محمد علي كورة هي عاقل عبدالرشيد حاج علي الشراء وهلا هذا بيلوضع يعني كده حيسو كونفليكتي كتير مقالة سوى ذا الشراء أيام ولا هذا الله نرجعني ذا يوم وهي ديان كراح مستقبل كيسي عيسى وحكران لقول إنه ريال كلا وحكر هذا وكسر شيء ديان كان مسوق الله يضح بالسعطان مسوق الله حبدون تشوجني إذا ما دوا كلا الرأي نقاشي وسكاني نبضين بان كقلي أرنت عيدا باغنا الدولة مسوق كارسيني وودري حنوصلنا يا أنا أبرز قبل كا أرنت أنا بتقولي الديان كجرته إعاد قولي ده إنسي عن هجر لهاي الدولة وسو إيشا حريص له وسو تو حنك قبضه جودي بدنا يكون بس ورنا وصل هذا الله إمكان أن كسوينه إن شاء الله تعالى مركا أي هبوناته وأمني أن تجنو ونبتقليه ما يسون قطه إن أديكي بلشده آدو ليد دايتها وحبر الشضا دايتها بيها دايتها عافماتك إن إيادنا جهد اللي صاروا إن ديجان كان مسؤول نوليه وحلقة قفته ولسوق قرسيو قول الله كلا يسومال لان أنا أقول كرسون كونر تشوي ورمرينتا يو أديك وهذا الذي سوق هيد ميان كود هذا اللين هيد ماشي عاد وحندونا يا إنا يابن النقطة وحندونا يا إنا النقطة مال كم وقتها وح عن كقبنا أي نقطان أي كقبنا أي نقطة وحعد يلا تدوينه هنا ونرى شقينا يعني وقاش ضياش يحكرت أنت وحنا كل تشوفنا إن نكوكول سندونه وأنا نكوكول سنين حتى يوم نتهاي هذا يتقول قاد استديك بالشدة waxaan aad uga mahadnaqayaa anoo ka wakiila dawladda gaarsiiyayna salaantii aan madaxweynaha iyo xukuumadda uga waday deegaanka iyo odayaasha gobolka Xaysimo waxaan kana wakiila وبرخة عمر أحمد تلفزيون قرن كسمال الآن لا صعنات